haddaan xariga sii dayn lahaa ugu yaraan ceelkaas hadda aan xasuusto wuxuu ahaa 40 mitir 50 mitir waan dhiman lahaa wallahi waa dalanaan jiray habeenkii oo dhan ma seexan waa baqi jiray because durwaag ayaan ka cabsan jirnay halkaas marmar waxaa jiri jiray libaax markaasaan codka durwaaga waa soo dhawaanaya midxagga toreybu la bax saa u siibtay markaasuu intuu halkaa timaha ay qabto halkaa iga saaray dhuntaa anigu waxaan ku dhashay meel aan ka fogeyn magaalo la yiraahdo Gaalkacyo waxaan ka soo jeedaa gobolka la yiraahdo Mudug maanta waxaa loo yaqaanaa Galmudug laakiin anigu Mudug baan ku dhashay 30 kilomitir bay u jiraa Gaalkacyo meeshaan ku soo koray caadiyan waxaan ku koray laba gobol dhexdood marka saas daraadeed maadaama aan reer guuraa iska ahayn oo miyiga aan ku dhalanay meel kastaan degi karnay dhinaca Galmudug iyo dhinaca Puntland meeshaan rabaan degi karaa family ahaan waxaan nahay 10 caruur ah 5 wiil iyo 5 gabdhood baa ila dhashay waxaan ahay ninka ugu yar waxaan iska ahayn xoololey waalidkay waxay lahaayeen lo iyo ari ilaa iyo waxaan joogay miyiga markaan ahaa 12 sano ayaan qiyaasaya waayo ma garanayo markaan dhashay walaal noloshaas nolol adag bay ahayd haddana macaan waxa weeye miyiga markay abaar noqoto oon roob da'in noloshu waa adag tahay waayo annagu xayawaankan wadano xoolahan wadano baan ku xirannahay daaqa iyo biyaha marka haddii aan roob da'in noloshu waa adag tahay waa nolol adag laakiin marka roobku da'o oo barwaaqa noqoto waxa weeye marka ugu fiican tahay miyigu waxa tahay ninka miyiga ku dhashay waa nin xor ah waxa weeye noloshaas intuu haysto oo cunaaya kaliya ayuu u baahan yahay haystaa waxyaalaha aan ka heli jirin oo aan nabca markaan yaraa oo miyiga ku noolaa waxaa ka mid ahayd walaalkay baan la socon jiray lo baan lahayn lo badan marka looda ay waxay u baahan tahay 3 maalmood inay biyo cabto marka markasta waa inaan biyo helnaa marka walaalkii aniga looda raaci jirnay looda waxa la yiraahdaa horweyn looda horweynka dadka hore ay yaqaan u malayn magacaas looda horweynka waa looda aan weelaha aan dhalin waan caanaha lahayn baan la tagi jirnay looda caanaha lahayn waxaan uga tagi jirnay caruurtii hooyo iyo guriga joogi jireen say caano u haystaan waxyaalahan ka heli jirin waxay ahayd marka loodu soo aroorto oo ceel aado marka ceelka markuu biyo ka dhamaadaan waa inaan ceelka soo dhuraa oo aan ceelka galaa marka waa nabcaan jiray marka walaalkay ii yaro wuxuu dhigi jiray Bashiir kaale waxaan ahaa kan ugu yar waayo qofka yar waa fududiya ma fahmaysaa saas daraadeed inaan ceelka hoos aado oo aan soo dhuro biyihii baa yar marka weel yar baan qaadanayaa wadaantaan buuxinayaa markaasay shubi qaadi jireen waa buuxinayaa marka ceelku waa nabca ceelku waa dheeriya wuxuu mararka qaarkood 50 mitir waa gaaraya marka ceelka mararka qaarkood masas baa ku jira waa mugdi wax ma arkaysid toosh ma haysatid wax la yar ma haysid madow ah ku jidha markay wanaantu ay qaadaan biyaha kor u qaadaan biyaha ka soo daadan jiray biyahaas madaxa iga shumi jiray mararka qaarkood dhagxaan ugu soo daadanaysa iyo carro waa waxa nabcaan jiray tii igu dareedaan ogaa waxay ahayd maalin inaan ceel soo dhuray noqoto ceelkii waa la ii diray hoos baan tegay saan u dhurahayay ayaan markii biyihii looda cabtay baa walaalkay wuxuu yiri soo bax kor wadaanta qabso wadaantaan qabsaday korba ii soo bixiyeen way soo wadaan markaan u soo dhowahay soo bixitaanka iridda ceelka aan soo jiro
وحير أسوجه بان وحن أركا ماذا حساس وسوء وحبان دريمي إلى أمريكيس وأركي إنه مسيحي مسيحي ترى عيرش الجرا وشمبرا جرا عيالك وبيكعبه مركز شمبرها سعنا مسكو ساس درادد بلوغ وجلا سي شمبرته وقبصه مركز وحن أركي مسكيو ساعة إنه ربع يقوله وأنا عبصدي عرورنا وانها إلهي أمركيس إلما عروته مية كل شوء إلما كرتبا حرق سيمة سيدين وحدان حرق سيدين لها ويران عيال كاسد أنا حسوسته وحوا أفرتن متر كونتن متر وأنا من لها وايو دقحان واي دربيدا كل علا با وأيضا ما لها لكن حرق سيمة دين ولكن نصيب waxaan ku lahaa ceelka iridan u soo dhawaa walaalkayna waa arkay kaas wuxuu ugu yiri ha sii deyn xariga ha sii deyn xarigan ku dhiga marka qabsaday markaasan xariga anoo haysta ayaan lugta ayaan dhinaca maska dhinaciisa kale ku qabtay waan maska saan uga fogaado ya ka bacdi walaalkay baa maski madaxa ka gooyay ka bacdi laga soo saaray walaalkii waa inuu habeenkii ceelka hor seexdaa si aan ceelkeena loo cabin biyo subaxa hore dad intay u yimaadaan ceelkeena cabin marka kaligaybu iiga tagi jira looda waa mugdi kaligay 12 ama 11 baan jiray marka waa inaan looda dhurwaaga ka celiyaa habeenkii oo dhan ma seexan jirin wallahi waa dalanaan jiray habeenkii oo dhan ma seexan waa baqi jiray because dhurwaaga ayaan ka cabsan jirnaa halkaas marmar waxaa jiri jiray libax yimaada waxaa la yiraahdaa dool libaxaas meel fog buu ka yimaada hadda ka hor waxaa jiray inaan maalin aan guurnay marka subaxii loodii way socotay in habreedkii iyo waxaan la socon jiray in habreedkii iyo walaalkii marka anigu waa inaan weylihii celiyaa weylaha marka looda looma soo dhaweeyo waa laga fogaadaa laakiin haddaan u soo dhawaado looda anoo weylaha wada weyluhu waxay ku ordahayaan hooyadood marka waa inaan ka fogaadaa xoogaa 2 kilomitir 3 kilomitir waa inaan ka fogaadaa waxaan raacahay raadkii looda weylihina waa ka haynaya waan soconay raadka loodan fiirinaya waa daba socda weylihan ka haynaya إلهي أمركيس قرحة بعد عضي أنا جارين لودي وأنا كلجي ويلي من كعين هيا سان السعودي موجودين نقط قرحة بعد عضي مركز سان وحن راسدي ميل خير هورك ميل دت هوري أي دجناين ماشي هورو دت كدجنا وحكي حرة أي حولها كحريسين جنين حرة دي من هالي حرة دي من ويلي كلي ويلي من ده حجرة meel waxaa jira irido xoolaha ay ka soo galaan xirada meeshaas intaan geed ku soo xirtay aan weylii dhex fariistay waayo waxa ma arkayo waa mugdi saan u fadhiyay waxaan maqlaa waxay ahayd meelahaas 10 habeenimo waxaan maqlaa duwa soo dhawaaqay dhawaaqiisaan maqlay meel fog ka soo dhawaaqay waan dhahay duwa soo socda بلايا دع يا مركزن قول يران قاتي وأقفل ويليه ومقلها مثل الصور دواقية مركزن هذا نوع المقلة مثل دين عكلة كدواقي درواب ومركو دواقة هيو وهذا الكيسة واسكو يران هيان سيؤبتان مركزن وعروفنا واسكاها نكت والله وابا وحنا وعاوه دبعتها جدا دواء وصصعدا مركاسا عدك دواء وسود وانا هي مد حقه هاد بس وسود وانا waxaan aruursaday intaan xirada ka baxay waa mugdi toosh ma haysto midi aan kama wadan aruur aan mugdi nimanka weyn to riiqata xirada intaan ka baxay waxaan soo aruursaday dhagaxan ماشي بنانك
aan dhagxaan iyo ul iyo waxaasan soo xaabsaday aan xero la soo galay barwaagu waa fulay ma ogtaa wuxuu sameeyaa sharqan xerad buu ku meerayst waana badan yahay markaas intaan dhagxaantii la baxay ayaan tuuriyo buf waa tuura wuu arka in qof joogo marka barwaagu waa fulay kaas haddaa ku jidhuu ordahaya laakiin tiraday ka bateen habeenkii oo dhan ma seexan weylaha dhibaatada weylaha waa yaacayaan because waa baqayaan moogta hadda dhinaca u yaacayaan duwaag dhinaca ka imaan kaas dhinaca u yaacayaan dhinaca kuwa igu tumanaya aniga xeradan ku jiraa moogta ya banaanka taa uu cunayaan ka dan banaanka u bax moogta ilaa iyo subaxii qoraxdu markay xoogaa soo baxday ay idaay ما بروح حول مصين هاي وحوي هدنا ريبين هاي وحوي حولها وجعلنا هذا إن حولها وأدي أبان جعلنا تنكرها دي بروح ونويشة والله ولا لك دبعت ولا لك الفوي قاعدة سيمص عنيسو مركزات درادين ويل إنه هل ويل يقول أنا برهن حولها وجعلنا وكل دارنا مص عنيسو معلم واحد شدي أنه أنتي كروم نودة أي loode waxaan la joogay wiil abtigay dhalay in abtigay labaad buu ahaa ayaa iska ciyaareenay markaas waxaan aragnaa laba nin oo ugu soo socota si noogu soo socday bay noo yimaadeen laba nin oo midna waa weynaa midna waa ka yaraa dhalinyaro ahaa kii dhalinyarada igu soo aadi toorey buu la bax saa u siibtay markaas intuu halkaa timaha ay qabto halkaa iga saaray lunta markaas wuxuu ugu yiri aw walaalka Abdullah markaasaan dhahay ma ogi markaas yiri wallahi billahi hadaad ii sheeg waa ku marina tooreyda ii sheeg meeshu jiro markaasaan dhahay ma ogi markaas ayirka abtigay dhalay xoogaa uu nax markaasuu ooyey wuxuu u maleeyay inuu ugu jiidayo way miiga anaga saas ahayd moogta qabiil marka waxaan anigu ogeyn waxa jira qabiilkayga ayaa qabiilka kale mid ka dilay marka walaalkay bay raadinayeen weyn marka aniga dhalinyaraan ahaa waxaan ahaa caruur baan ahaa marka Soomaalida miiga caruurta iyo hablaha lama dilo waa ceeb marka kii weynaa baa kii ku yiri wariya naga dhaaf caruurta ma dilne kada wariya ninkaas iga celiye marka may walaalkay xumad dileen laakiin qabiilkayga mid ahaan mid kale ka dilay ayaga marka waxay rabeen inay walaalkay dilaan saas daraad bay u raadinayeen walaalkay weyn ma helin walaalkay uu ka war helay uu naga tagay laba bari ka hor anu ma ogeyn ya dhinaca oo qabiilkaygu aadi ninkaas weyn yani wax garad u ahaa waraa wuxuu naga dhaaf caruurta ma dilne walaalkiisaan raasanaynaa maalintaasna xoogaa waan baqay waa dhiman gaara wallah waxa weeye maalintaas maba ka fogeynba maalintaas tooreyda ninkaas ugu qabanaya wax yar kadib waxaa jiray in gabar walaashay oo Muqdisho ku noolayd waagaas inay noogu timid miiga markaasi ayaa waxay nala joogtay dhowr week markaasi waxay ugu tiri Bashiir baadiye ka soo tag iyo moogaal xamar maalintaas waxaan ku tashtay ina miiga ka tago